maqashay horta waa kuma madar maxamed ayaan le cabdillah halkuu ku dhashay magaala madaxda togdheer ee burco halkee wax ku bartay dugsiga smart primary and secondary school oo burco ku yaal codkiisa si live ah ayuu ugu heesaa ma fanaan soo kufay ayuu ahaa mise iminka ayuu rabaa in uu galo wallahi may weligay ma jeclaan inaan fanka galo asxaab fara badan oo aan YouTube-ka iyo TikTok-ta iyo Instagram-ka iyo macnaheedu media aan ku leeyahay aad bay igala talisaa iga dhamaantood aad bay u mahadsanyihiin sida sharafta badan leh ee aanay u jeclayn inaan maaragtay fisaqa arrinka aan dhex galo laakiin ma jecli dadku bay guraan dadka qaarna waxay guraadaan wada cid macaantay dadka qaarna waxay guraan wada cid macaantay iska ilaali fanka marka just aniga may maraba inaan galo inaan iska raaxaysto inaan iska dhigeysto waan jecelahay laakiin aan dhex galo ma jecli wala waan mal inaan hubin inay isku dambi yihiin laakiin aan dhigeysto waan jecelahay walible akhrinta على waa hay ku tawaawshana gali maayo gada anoo insaan ku maqlay hadiis bari sheekh akhrinayeen meesha ku soo tirshada ma garanay qofka fanaanka heesa iyo qofka dhageysta horkaliya kaasa ka dambaada balay ka dhageysanay wallahi anigu arkaa daliil uma hayo laakiin se culimada ku noqoto way inkasta kulli hargeyso hoyga fanka ka soo jeedno kulli fan soconayeen fanka daba laga ma wallahi nifanku waa fara badan yahay baa la moogtahay fanka wax kasta imka waxaad arkaysaa artist ka soo galay fanka marka fan laga hadlay aad iyo aad imka waxaad arkaysaa waa runta kulli bay isagu waa iska fan marka kelmadan fan hadii la macneeyo waa iska qaraxaysa ama xaraabe fan ha marka waxa jira imka kubadda kale marka daawanaysid waxa ka saarabka ku naadinay inay yasta fanaan moogtahay marka qof walba halkiisu fanaan ku yahay anigu jiraanimadeedan fanaan ku ah weligii jacayl ma ku dhacay ha runta ha way ku dhacay jacayl ما يوم كقوليست sabab sidee muxuu jilaanimadu soo galay jilaanimadu waa hibe alla bixiyo oo dadku kala duwan yihiin markii hore waxa jirtay in iskuulka smart noo dhiganaya inaan ardayda u shactirin jiray yani ardaydan ka qoslin jiray laakiin hamiga ma yahay maalmaha kamid ah hargeysanimi koox cusub oo la yiraahdo Hof Films oo intii dambe aan dadka ka soo wada muuqanay mahane ay in hore oo kooxda ka baxday ayaan u yimi dabadeetana markaan u yimi tijaaban marinayo tijaabadii la mariyo ayaan dar lahays ka yiri saan la meeday Sunday ana markaan aniga wax u sheegtay adigu sameeyon baa leeyahay dadna sidii baan u sameeyay sidii baan ugu soo baxay sidii baana aan kooxda ugu biiray intii kale oo dhanna aanan marka dibaan u arkin laga wada fasaxay kooxda markaynu ku noqonay yaraantiisii iyo ciyaalnimadii horta qof noocee ah ayuu ahaa wallahi markaan yaraa waan dhib badnaa laakiin ummadda ma dhibi jirin sidee waxa weeyaan yani khaladku iga dhici jiray sababta bilaadan baan nahay ilmuhuna markuu yar yahay inta uu khaldamaya laakiin waxaan jecelahay oo aan oran jiray maanta waxa ka soo xaraabayso ma yahay laakiin waan saga abuurnay inaan iska xaraawaysto marka film la duubayo waa hawl noocee ah isaga se markee jiristu ku adkeed ruwaayada jinka markii aan dhigaynay ayaa waxa igu adkeed inaan qof dhan oo aan leeyahay ummaddu ma arkaan inaan anigu isku dhigan kaliya arko ani hor taagan sayis alla ma indhiis isku dhacan qofkood qoslaysa moogtay qofkood qoslaysa ilaa qof aad been ka sheegaysaa leedahay qofkii ma arkay ama yada qoslaysa tiisa ku sheegaysaa ala qoslaya marka adigu waxa igu dhib ma yahayn laakiin waxa igu la yaab badnaa markaan qof dhan oo soo taagan lahaa ma arkay xiisadii uu saaqidka ku ahaa amaba tii aanu ku fiicnayn marka ay soo gashana uu nixi jiray waxay ahayd xisaabta ha horta Soomaalida oo dhan xisaabta xaga isku fiicnaa inta barnaamijka waday dadka waxa ugu dhib badan xisaabta horta dayaxo wallahi xisaabta waxaan xasuustaa bari macallin la oran jiray Master Maths kabigiisa waxa la oran jiray Master Maths macallinkaasi wadnuhu xisaabta igu riday maalin walba egasiyo waa ku jiri karaya markuu egasiyo halka igu riday aan ku macallin maadadan xisaabta iga daaba waqti dabadeetana laga daanmay maamuli baan soo tagno ninka wuxuu leeyahay maadadan xisaabta iga daaba waxaan ku maamule aniga igu adagtay maadadani hadii leega daayo hadii kalena yaa laga khafiifiyo markaan garan waayo meesha maxaa lagu soo diray bal waxbartay meel lagu soo diray ha wad dhiganaysa wasla daal dhici jiray nafsaas ay haysa afar xaas iyo hal xaas go'aanka hadii isaga la siiyo raalina lagaga yahay midkee ayuu dooran lahaa wallahi ilaahay wartu jeclaan markaan sharaf badan horta kulli ilaahay bay noo baneeyay laakiin afarta xaas wadnaha ku dhacayeen
wallahi wadnaha ku dhacaya sababta wadnaha ku dhacaya waxa weeyaan balka war hadday isku mar fooshaan ama saddex isku mar foolato ama isku mar dhalaan ama saddex ciyaar waxba kala weyneen ama bilak soo yar kala horeeyay ku joogaan waa afar daasada caana ama ku heshiiyeen waa afar daasada caana afar boqos oo xafaayada afar boqos oo baambarisa afar boqos oo balaaya wadnaha ku dhacaya comment galaysta dad waxay koonaysaa xaga qabta xala guriga xaga war anaga waxa lagu sheegay bil akhlaaq marka waa dhibaatada iska leedahay baraha bulshada maxaa ugu dhib badnaa oo uu kala kulmay horta social caanimadan lagu sheegay marka hore waa dhib socoto marka si loo eego si marka loo eegana way wanaagsan tahay sida wanaagga marka loo eego kulli meel kasta tagto qof bad ku leedo yani meel kasta tagto ma ku ciloonaysid dad baa ku jooga marka kalena waxa tahay qof isqarinaya dukaanka inta laga gaari kartid waxba ma qabsan kartid caanimado dhan ka hadlaya say doonta baa noqoto ama fanaan noqo ama qof kale noqo madaxweynaha marka aragtay halka mareemka waa lagu soo shamuumaya marka caanimado dhan baa dhib iskale in waxaad arkaysaa bal qof ayna waxba idinka dhaxayna wiliga midis ku qabanino la waa nacaba war walaalo maxaad igu aragtay wiliga basmeena arag waa nacaba qofka soo kornay iyo qof kornay wallahi waan iska jecel walaa marka labada dhanba way leedahay 48 saac haddii wadanka madaxweyne looga dhigo muxuu ku qaban lahaa muddadaas oo dadka uga tagi lahaa haddaan su'aasha isku dayo yani haddii ummad Soomaaliyeed oo dawladda ama Somaliland ama Djibouti ama dawlad deegaanka ama Soomaalida oo koonfureed baa noqotay haddii lagu dhigi lahaa madaxweyne u noqo 28 saacadood 48 saacadood horta waxaan sameyn lahaa hospitaalada waxaan ka joojin lahaa dumarka la qalaayo number 1 sababta ugu joojinayna waxay tahay gabadhii marka la qalo 3 jeer ama 4 jeer waxa laga yaabaa inay dhalmadiiba nacdo oo ninkii iyo gurigii iyo wixiiba ma garanaysaa ay dhibaato ka timaado ma ku soo celiyo saacad ay dhibaato ka timaado horta dhakhaatiirta ayaan waxaan ka joojin lahaa dumarka la qalaayo dumarka la qalaayo waxaan uga joojin lahaa waxa weeyaan Soomaalidu hadday ugu badato waa 16 17 milyan marka dumarkeeni la wada qalo dhakhtar kasta iyadoo gabadhii waxba hayn oo dhibaato saa u weyn jirin xataa ilmihii aanu soo degan wali ayaa waxa la leeyahay gabadhan waa qaliin marka 3 jeer iyo 2 jeer la qalo gabadhii qof dhaawac aan noqoto waxa laga yaabaa qarkii in laga mudo ama ay gabadhii dhalmadiiba nacdo qof maalin kasta la qalaayo marka sidaas waxa ku yaraanaya population-ka Soomaalida si ay Soomaalida maaragtay u badinana hospitaaladan badin lahaa dhakhaatiirtan badin lahaa wax kasta oo bulshada Soomaalida wax taroolna waan ku dadaadi lahaa ay ugu horeyso dhakhaatiirtu si ay noogu dhalato caruur caafimaad qabta waa midda labaad waxaan ka hortagi lahaa dhaqaale xumida waxa keenaya waxa weeyaan Soomaalidu aan waxba isku ogolayn yani maanta dukaan ma bartan ka furanaya dukaan kale laga furaya xaasidnimo kama hay waxa waa dhaqan ay ka qabsatay bacadlaad meel laga sameeynaya ama meel maryaha alaabta lagu iibiyo 18 kale laga furaya suuq wajaan buu noqonaya marka si taas u yaraatana waan kala xadeen lahaa wadooyinka waxaan ka qaban lahaa wadooyinka kulli iyaga maayar baa u jooga laakiin waxaan isku dayaa inaan drainage u sameeyo biyuhu maraan sababtoo ah wadan kaliya oo Soomaaliya oo drainage fiican leh ma jiro hadii la hayana way aasmina way baaba'een Djibouti ma arag laakiin waan ku tuhumaya quraanka suuradee ugu adkeed horta quraanka waa dhibay alxamdulillah laakiin suurada iigu dhibka badneed baaree dhibka ka soo xiriirskeeda aniga qiraa'o marka hore qiraa'an ku dhigtay marka dambana xifti marka xiftiga marka aad igu adkaatay oo 3 jeer ayaan garan waayo 3 jeer la soo kala celiyay filimka jinka si boqol ah ayuu u jiray dareenkii jinkana waa keenay halkuu ku bartay dabeecadda jinka ma hore u la kulmay weligii jin meel lagu hadal hayo oo tanjik waa noocan ma arkin jinna ma arkin laakiin se waxaan aad u jecelahay filmaanta horrorka filmaanta bahalka aan aad u daawadaan aad u jecelahay marka waxa jiray film la yiraahdo I think inuu filmkaasi aan wax waaqic sax aan ku hadlayno oo macni uu khaldan yahay uu diimay xasaas ka hadlayo laakiin The Lord of the Ring baa la yiraahdaa yani filmka fargalka ma garanaysaa
adu filinkaas maan kamila awaalay filinka markaan kamila awaalay sidii buu ku baxay walow aan fikradaha isku keeni jirnay laakiin filinkaas maan ugu xagga farqalkay waxa cuntan karinta ma yaqaan xaajiyada ma ka caawin lahaa mise dhinacaas tamiin ayuu ka yahay wallaahi hortay aad iyo aad bay fiican tahay in xaaskaaga markay inaad mar walba garab taagnaato laakiin ragga Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in gabadha la caawiyo markay xanuunsato ama ay hawl qabtaan waxba qaban karin way si u badan yihiin qaarna badaba ma hayaan ama haddii xanuunsanayso haddii caadi tahay haddii kale way isugu mid waxba kama gelin laakiin anagu xagga cunto karinta aad baan isugu wacnay aad baan ugu wacnay sababtoo ah waxa jirtay waa aan burcad joognay guriga waxa igula noolaa 3 hablood oo eedooyinkaya 3 hablood oo eedooyinkaya laba walaal ka guursaday inana wax barashii dhigan jirtay marka aniga iyo adeeraday guriga ku nool iyo aabo danta waxaan ugu qasbi jirtay inaan cuntada karsano ha marka imkaan Muqdisho soo joognana guri baan wada deganahay aniga iyo asxaab fara badan oo ka mid yihiin Sacad iyo Deeq iyo Sideeq Warwar iyo asxaab noocaasa aadan marka hawsha nin walba hawshiisa ayuu ku cararaa marka aad baan cuntada sugu wanaagsan waan ka dabaalan karaa hadda iminka Muqdisho ayuu ku sugan yahay Muqdisho waa Muqdishadee jawigana waa jawigee Muqdisho jawigeedu wallaahi aad buu wacan yahay maasha Allah waxaan ku soo beegmay horta waqti aan kuleyl ahayn oo normal ah ummadda ku noolna waa ummad sharaf iyo qaayo iyo qiimo Ilaahay u dhaliyay oo ku ixtiraamaya oo qof walba halku joogo ku ixtiraamaya ما شاء الله ودت سمر يد القاد إلهي أدلي أو شرف بدن وأنا دقيقيو ولا لها يا عاد بنوش على هاي مركا هرجيسة يوم مقدشو ولا ما قالوا ذو اسمه ما إصلاح مدر كان أياد نقونيسا ما يوم مكفرين أوكي اسمنا الله هين مدر كمان تهير كنت هاجني كل بشوف اللي ولا تقانا ما ورن كرو لكن إني تلاقي تقانو اسمه الله مرنا وجالسة قبل الصوماليات iyo gabadh ajaanib ah hadii labadaas loo soo xulo midkee ayuu dooran lahaa wallahi su'aashaas waa su'aal aad u fudud oo hableena Soomaaliyeed cidna kuma doorsadeen waa hablo sharaf leh akhlaaq leh diin leh ku fahmaya kula dhiiga Soomaalinimada iga badan wallahi wala dhibanaya aniga Soomaalinimada aad iga badan ma sha Allah hableen halku doonaya in uu gaadho ama muxuu rabaa mustaqbalka inuu noqdo qof walibana jecel inuu heer aad u sareeyo ka gaadho kulli hadaan imka farihi la soo galay waxaan jecelahay inaan heer aad u sareeyo ka gaadho waxaan jira inaan aad u taageero la dhaho Charlie Chaplin oo dadka aad uga qosliya imka isagoo oo dhintay oo geeriyooday ayaa ilaa imka magaciisii si jooga oo dadka sharaf ku dhaxleeyay inaan heerka ka gaarnay aad baan u jecelahay Soomaalida laftirkeena waxa jira boon xirsi oo isagana aad u jecelahay oo ilaa imka hadii aad boon xirsi dar ilaahay isaga maqasho aad si qoslayso يا عبدي هو لامبد واسقول لك يمكن نور او عريقه دبد ku nool ha isaga laftirkiisa waxaan xariisto u baahan naxariisto u baahan isaga laftirkiisa